arrimaha idin weydiinaya ninka oo waxaa leeyahay Soomaaliyan bixinayna ninka Soomaaliland u dhashay saactiisa daan u raacno warkiisa tiisan raacaya anitayda maan taagan safaaradaha Soomaalida safaaradaha ajnabiga safaarada Soomaaliyeed ee dalalka ajnabiga taagan iqaamaduhu ka dhaceen 20 carruurta ama 12 carruurta leh waxaan leeyahay arintaas waa been raqiisa oo la abuuray waxaan leenahay passport Somaliland leedahay kaasaan ku taraafalaa meel walba ku tagnaa dadka iyaguna baasaboorro kale oo fara badan oo adduunyada lagu tago kayaga hadii labada la eego sharaf badan oo meelaha qaarkood Yurub iyo Ameerika markaad eegto waxa ku sharaf badan ka Soomaaliya ka Somaliland baa ku sharaf badan hadii iyagu u baahan yihiin waynu weydiisan karaan laakiin anu kooda uma baahnin cali waran cadde sababtii waan ka dabatay sababtii waxay noqotay hunguri ka uu dhimanayaana ee ilaa xamar waraqa ugu qorayaana waa hunguriga gaafow baa run sheegaya halkii aniga waxaan ku hayaa warqada oo qoray cali wasiir cali waran cadde warqada hadda akhriyo waxay leedahay codsi furitaan xafiis markaan arkay codsiga uu soo qortay xafiiska Safari Travel Agency markaan arkay baahida shacabka Somaliland markaan arkay sida ay laga maarmaan u tahay in uu shacabku helo baasaboor Soomaaliyeed markaan arkay in xafiiska codsiga soo qortay uu qaban karo hawsha waxaan idinka codsanayaa inaad noo ogolaataan furitaanka xafiiska socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed inkasta ay jiraan kala duwanaansho siyaasadeed haddana shacabku kama maarmi karo helitaanka baasaboorka Soomaaliyeed laakiin halkan waxa la Soomaaliland sida ugu bakartay oo international community oo independent oo ictiraafsan ma jirto we are part of Somalia marka sida loo dhigo waxaanu la midnahay koow waxay naga horeysaa dawladii muxuu ahaay federaalka ahayd laba Puntland saddex Somaliland afar galmudug marka dhammaan waxaanu wada hoos nimaadnaa federal state of Somalia